بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ah maalin talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha January sanadka 2022 shir ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose xamar isla markaana ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada booliska qaybahooda kala gedisan ee qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa waxa loogu hadlay marxaladaha dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo warbixin ka siiyay ee dhammaan saraakiisha qaybahooda kala gedisan iyo gudoomiyaasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay ee shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagaboobay taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaa muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxa la isla soo qaaday mar hadii dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gedisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wada tashiga qaran iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii madasha qaran in magaalada Muqdisho aysan u sii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhammaan bulshada qaybahooda kala gedisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor kale la damacsan magaalada Muqdisho mar walba shaatiyada kala gedisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gedisan ee caasimada magaalada Muqdisho runtii uma baahna culeysyo kale oo hor leh mar hadii wadanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka Banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan waxyaabo fowdo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir sida daraadeed magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ciidamada qaybahooda kala gedisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimada la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan isla markaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowda ah oo aan wax sharci ah loo haysanin magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo isla markaana aan u direyno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan u turaan in badqabka magaaladan caasimada magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dawladda hoose xamarba ugu shaqeynayso magaalada Muqdisho waxaanu ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqlayna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar hadii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna hashiyay qodobadii ay isku horfadhiyeen dhammaan qaybaha kala gedisan hadii ahaan la siyaasiyiinta iyagu mucaarasan dawladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gedisanba in xilligan aysan ku habooneen in wax banaanbaxyo ka dhacdo magaalada Muqdisho culeys inta ka badanna magaaladan Muqdisho aysan xamili karin sida daraadeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaanbaxa aysan ka jirin magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaanbaxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimada